saacada ku dhow socday ayaa waxa uu ka dhacay kontaroolka magaalada Boosaaso dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan daraawiishta iyo ciidamo beeleed ay isku hayb yihiin iyo ciidamada dawladda Puntland kuwa badda oo hoos taga Imaaraadka Carabta iyo booliska Puntland oo iyaguna isku dhinac ahaa ciidamada weerarka soo qaaday ayaa waxa ay subaxnimadii hore ee saaka ka soo kicitimeen magaalada Carmo oo qiyaastii 100 kiiloomitir u jirta magaalada Boosaaso kadib markii la sheegay in magaalada Garowe ay ka soo baxeen ciidamo uu wato korneyl lagu magacaabo Cagadaystay ciidamadan ayaa lagu soo waramayaa in ay ka gadoodsan yihiin khilaaf ka jiray maamulka Puntland iyo ciidamada PMPF ee ay Imaaraadku maamulaan balse shirkadda BDG ee wadaniga ah ay qandaraaska adeega ciidamadaasi ay gacanta ku haysay tan iyo asaaskii ciidamada badda Puntland dagaalkan ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira balse aan ilaa iyo hadda lahayn tirakoobkooda waxaana ciidamadii huwanta ahaa ee gudaha ay u galeen magaalada Boosaaso kadib markii ay ka awood roonaadeen ciidamadii ku sugnaa kontaroolka magaalada Boosaaso arintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli maalinimadii shalay tuulada Kalabayr ay ciidamo ka gadoodsan taliyahoodii oo la xiray ay la wareegeen gaadiid dagaal iyo xamuul isugu jira iyagoo sidoo kale la wareegay kaydkii hubka kuwaas oo u dhaqaaqay deegaanka Dacawaley oo aan ka fogeyn magaalada Kalabayr oo ka xigta dhinaca bari ee ka durugsan jidka laamiga ah magaalada Boosaaso waxaa ka taagan xiisad kadib markii saaka ay kontaroolka magaalada ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Puntland iyo Maleeshiya ka soo horjeeda oo ay weheliyaan qaar kamid ah ciidamada daraawiishta ee Puntland oo gadood ah wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa khadka telefoonka ee Boosaaso kula xiriiray nabadoon Suxulle Yaasiin Ismaaciil oo kamid ah nabadoonnada Maleeshiyada sheegtay inay magaalada gudaha u galeen magaalada waxaan u soo galay markii ay ku fashilantay siyaasadii Puntland oo muddo badan wax la isku dardarsaday ahayd oo aan isku fahmi weynay ninkii aan u dooranay oo aan u maray systemka aad ogtihiin markuu ku fashilmay systemkii Puntland oo kii ugu dambeeyay ahayd u jeedeen Garowe la isku leynayay iyo waxyaalihii dhacayay ayaanu maaragtay annaguna waxaanu dooranay inaan ummadana isugu yeero reer Puntland ay ka tashadaaneen aayahooda intaasaanu nimo magaran qorshihiina xiga muxuu yahay wuxuu yahay inaanu ugu baaqno dadka nabad ugu baaqno wax dhibaatay aanay dhicin dagaal dambe aanu dhicin dadkaani waa dad hela wax maaragtaa dhibaato ka dhicin dhammaanna waxaan ugu baaqaynaa ama gobolka bari ha noqoto ama Puntland ha noqoto mar haddii wixii la isku darsaday oo magaca loo baxshay ay ku fashilmay ciddii loo dhiibtay waxaanu ku baaqaynaa annaguna nabad baanu ku baaqaynaa dadkana nabad baanu ugu yeeraynaa waa tashina ugu yeeraynaa meel ciidamo maleeshiyaad ama beeleed ay soo galeen oo maamul horey uu oga jiray ee dadka walaac ay ka muujinayaan marka sidee ku dhigi kartaa magaalada waa xasiloon tahay magaalada waa xasiloon tahay wax dhibina kama jidho mana ka dhacayso dhammaanna waxaan u sheegayaa ummadda in la isugu yimaado nabad oo lagu wada tashado Puntland waxay ku dhisan tahay wada tashi bay ku dhisan tahay haddana waxaanu ugu baaqaynaa dadka in la isugu yimaado wada tashigii Puntland 20 sano ay jirtaa marka maxaad hadda fawdo iyo kala tagis iyo yacni maleeshiyaad urursi iyo iska hor imaad u abuureysaan idinkoo heli kara in wada hadal iyo garnaqsi aad ku heshaan waxa aad doonaysaan hadda u mahadsan tahay kelmadaas waa kelmadaan u xil qabay inay weydiiso adeer waan ku salaamayaa annaga hadda waxaan hadlaynay website kasta oo jira dal waxaanu hadlaynay gobolka bari annagoo ah 4 bilood oo 4 jeer ninka dalka xukuma uu yiri madaxweynuhu Boosaaso marna uu diiday inuu nala fariisto nalana hadlo hadalkiisina uu ahaa wax oday la yiraahdo iyo wax bari ka jira oo wada bari la yiraahdo ma jiro arintana waxa weeye maamulka wax la isku darsaday weeye wixii aanu ka hadalnay oo tabanaynay haddii nala kala hadli waayay hasab waxa noqonaysa hadde wixii waxaan ahaynay inay abuurmaaniin annagana waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye wada tashi iyo inaanu waxyaalaha jira wax la iska weydiiyo ma garan sidee u arkeen dadkii deegaanka Boosaaso maadaama aad magaaladii soo gasheen iyadoo aan laga warhaynin maamulna hore uu magaaladaasi uga jiray oo ay xasilooneed adeer waxay u joogaan dadku waa og yahay wax dhibina ma jiro wax dhib loo geysanayana ma jiro magaalada waa xasiloon tahay ganacsigu sidoo ah u soconaya dadku soo ah u shaqeynaya wax dhib oo ka jirtaana ma jiro
waa culays oo ka jiraana ma jiro. ma u diyaar garowdeen cawaaqibka ka dhalan kara idinkoo maleeshiya wata inaad soo gashaan magaalo uu nidaam ka jiray oo kala socotay oo deganayd? De waxay ila tahay cid kale ma soo marin, dhul kale ma soo marin, inaanu soo galay adiguba oo luga ku soo galay waa aragnaa, adiguna waa ujeedaa. waxaanu u soo galay na waxa weeyaan haddii sida aad ujeedo weeye, waana kaaga warramay waxyaalaha jira. waanu u diyaar garownay inaanu maaragtaa insha allahu wax kasta oo jira wixii ceebana iska difaacno, dadkuna nabad ku noolaado, talada la isugu yimaado. waa tahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon Suxulle Yaasiin Ismaaciil oo u warramayay Cabdulqaadir Samakaab.